بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله رب العالمين guud ahaan waxaan halkan ka salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay caalamka ka joogaan sida aad la socotiin una faahfaahiyay wasiirka amniga dalkan waxa ka dhacay xalay ilaa yasaaka afgembi dhicisoobay afgembigaas sida aad la socotiin waxa geystay oo ka shaqeeyay madaxweynihii hore jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhibaatada inta la eg sababaha loo marayo waa dareemi kartaan waa sababaha doorashada oo uu ra'iisul wasaaruhu faahfaahiyay madax kalena ay faahfaahayso ciidamadeena qalabka sida guud ahaan iyo gaar ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in aysan ka qayb qaadanin qaybna ka noqonin falalka noocaan oo kala intii ku kadsoontay saaka oo isku dayday inay la wareegto xafiiska ra'iisul wasaaraha oo dalkan mugdi ay geliso oo ka soo laabatay shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamadu iyo dawladaba il gaar ah ay ku eegi doontaa inta stiil ku harsan oo ka shaqeynayso wali falalka noocaas oo kala waxa laga qaadi doonaa talaabo waxaan ugu baaqaynaa inaysan ku kadsoomin markale ka amar qaadashada iyo fulinta awaamirta madaxda danta gaarka ah kale ee arrimaha doorashada waxaan rabnaa dalkan meel mugdi ah mar labaad inaanan loo celin waxaan rabnaa in ciidamadu maaragta waxa lagu dhisay laguna qalabeeyay hantida shacabka Soomaaliyeed suuragal ma in iyagu lagu dhibaateeyo markale oo hantidoodii lagu dhibaateeyo dib loogu geysto sida la socotiin ciidamadaas taliyahoodii amarka ma bixin amarka wuxuu uga yimid maaragta shakhsi dana gaar ah ku wato sida daraadeed waxaan rabnaa inaanan mar labaad aanan lagu dhibaateynin shacabka Soomaaliyeed duruufaha noocaan oo kala waxaan amraynaa dhammaan ciidamada qalabka sida meel walba oo ay joogaan inay u adeegaan shacabka inay ka qayb qaataan howlaha lagu baacsanayo dadka faldambiyada xalay iyo saaka dhacay geystay inay operationkaas ay ka qayb qaataan annagana waxaan ka ballan qaadaynaa shacabka hortiisa inaan marna yeeri doonin nafteedana u hori doono in dalkan mar labaad meeshii laga keenay dib loogu celiyo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh